madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ka dhawaajiyay in uusan walwal iyo walaac toona ka qabin in xuduudaha wadamada Finland iyo Norway uu Ruushka soo weerari doono. Trump ayaa hadalkan ka dhawaajiyay kadib markii aaladda satellite-ku soo qabatay sawirro muujinaya in Ruushku bilaabay dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan ka oo uu ka wado xuduudaha uu la leeyahay wadamada Finland iyo Norway. Arrintan ayaa ka dambeysay markii halkaa lagu arkay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Ruushka iyo sidoo kale kuwa dagaalka kuwa oo si xoog ah u jooga xuduudaha ay la wadaagaan Norway iyo Finland. intaa waxaa dheer in xeryo ciidan oo ay ku xariisan yihiin dabaabaadka iyo hubka noocyadiisa kala duwan iyo ciidamo cusub laga dhisayo xuduudaha ay la wadaagaan dalalka Norway iyo Finland, taas oo walaac xooggan ka muujiyeen khubarada dagaalka. waxa uuna Donald Trump sheegay in aysan arrintaa hadda suurtagal ahayn oo uusan filayn in wax caqabada ama ammaan darri ah ay ku imaan karto wadamada Norway iyo Finland. Madaxweyne Trump ayaa la weydiiyey in uu Ruushka ku soo ragayo cunaqabatayn dheeri ah sida uu ka dalbaday madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump ayaa sheegay go'aanka isaga ah in uu yahay qofka iska leh oo uu isaga kaliya go'aanka gaari karo oo aysan jirin cid u gaarayso. waxa uu intaa ku daray in go'aanka isaga ah uu ka fiirsanayo uuna eegayo xaaladda iyo habdhaqanka uu Ruushku sameyn doono. Trump ayaa intaa ku daray in Ruushka uu la hadlay madaxweynahooda oo ay wada hadal qaatay in ka badan 2 saacadood ayna ka hadleen xaaladda dagaalka ka aloosan qaaradda Yurub. waxa uu intaa ku daray in uu eegi doono sida uu Putin u dhaqmo iyo dhabaha uu raaco. si taalamida ayuu Trump sheegay in uu wada hadal saacado badan qaatay uu iyaguna la yeeshay madax badan oo qaaradda Yurub ka tirsan kuwa oo uu kala hadlay xaaladaha isbedelayo iyo dagaalka laga cabsi qabo in uu deegaano kale iyo dalal kale ku faafo ka oo muddo soo jiitamayay kana dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine oo ay taageerayaan wadamada Yurub iyo gaashaanbuurta NATO. halka ay wararka ugu doorkaroon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.